bulshooyin badda garaacada iyo bartay uga taal dalkeena iftiinka baxaya ee muuqda dadkeedu badi tashaday dhismaha dekedda garaacad waa mashruucii ugu ballaarnaa abid si isku tashiya Soomaaliya looga fuliyo iyadoo ay gacan ku hayaan howlwadeennana ka yihiin ganacsato iyo muwaadiniin Soomaaliyeed waxaad moodaa in laga gudbayo gacan shisheeye wax ka dhowrkiyo dawlad gargaar laga sugo garaacad waa magaalo xaybay taariikhi oo ku taala bartamaha waqooyi bari ee gobolka Mudug Puntland Soomaaliya waa magaalo isha caalamka hal mar ka yaabisay kadib markii laga hirgeliyay ololaha samaynta deked cusub oo casri dekedan oo noqon doonta ta ugu weyn Soomaalina ay gacanta ku hayso iyagu dhisteen dhismaha dekedan waxa barbar socda wadooyin waaweyn oo isku xidhi doona dalka iyo dalalka dariska oo deegaanka Soomaalida ugu horeeyo kaasoo ku sii xidhi doona Itoobiya weynta 100 milyan waa hees dhinac ka tusaysa qurbo joogta dal aadan lahayn fadhiga inaan horumar lagu gaadhin hadduu boholyo qurbaha qabow iyo baraf ku dilay dalxiiska bogoo dhaqaaq bilicdii mudug garaacad gaadh nasoo beriyo wacan ku qaado jawiga xeebteeda bilan ereyada Ismaaciil Cabdi Nuur Afburqade laxanka Cismaan Bila Caymo music hayno ka talapacho codka xidiga daada yar Cali Najiib waa Cabdi Askar oo idin la Soomaaliya tashigu iyo isku tiirsanaantu wuxuu tari karo aragtee ha u tookal aanina dhulkiina bulshay badda garaacadaya khayraadka buuxda dhago barariya nabadda taal nimcada boqorku galaday bulshay badda garaacadaya khayraadka buuxda dhago barariya nabadda taal nimcada boqorku galaday مشروع لبلاريو دكد اللبلا بيارك أظن كبخايل هين بلدها هم بليو بلدها أظن كبخايل هين بلدها هم بليو بلدها مشروع لبلاريو دكد اللبلا بيارك أظن كبخايل هين بلدها هم بليو بلدها ياذنك بخيل هين بلدها هم بليو بلدها حدوب واليو غربها غبو يبارف كدلي دلحسك بوغو دغاق بلعد مدقار عدقار نصب اليو عنكو غادو جويقة حبتي ذا بلان نصبر يا وحنكو غادو جويقة حبتي ذا بلان حدوبوه اليو غربها غابو يبارف كدلي دلحسك بوغو دغاق بلعد مدقار عدقار نصبر يا وحنكو غادو جويقة حبتي ذا بلان نصبر يا وعنكو قادو جويقة حبتي ذا بلان garaacadaya bartay uga taal dalkeena iftiinka baxaya muuqda dadkeedu badi tashaday bulshay badda garaacadaya bartay uga taal dalkeena iftiinka baxaya muuqda dadkeedu badi tashaday adduunkan baaratanka wuxuu lankeenu yahay horumarkan inuu bidhaamay adkeeyo sii balaarsha horumarkan inuu bidhaamay adkeeyo sii balaarsha adduunkan baaratanka wuxuu lankeenu yahay
horumarkan inuu bidhaamay adkeeya sii ballaarsha horumarkan inuu bidhaamay adkeeya sii ballaarsha hadduu boohalyow qurbaha aqabow iyo baraf ku dilay dalxiska bogoo dhaqaaq bilicda mudugara cadgaar nasoo barya wacan ku qaado jawiga xabteeda bilan nasoo barya wacan ku qaado jawiga xabteeda bilan ومالي وين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آيات القرآن كأي أقوم أكس وحين كفرنا كلا بركيسن أو نوعا وكلاه سي عن وقت كان أصقابنا وينقطعي قف كستنا جوبتي سا كل لابتو مدحوينها الصومالية مدن حسن الشيخ محمود مدحوينها دولة بنتلان مدن سعيد عبد الله دني مدحوينها دولة ديغانكا الصومالية مدن مصطفى محمد عمر وزيركا قاشانديغا دولة كينيا آدن بر دعالي mas-uuliyiinta kale ee halkan jooga oo kala duwan oo ka mid yahay gudoomiyaha baarlamaanka ee dawladda Puntland mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen mas-uuliyiinta kale ee halkan jooga dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin soo dhawaada wafuudda kala duwan ay ka mid yihiin xildhibaanada iyo dabcan iyana wasiirada ka socda dawladda federaalka Itoobiya aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaanteen iyo cid kastoo halkan joogta ma wada xusi karayno waxaan ku faraxsanahay inaan halkan idigu soo dhaweyno munaasabad taariikhiya munaasabad weyn oo aynu ku xuseyno kuna jarayna xariga dhismaha weyn ee dekedda Garacad oo taariikhiya waxaan hadalka siinayaa gudida shirkadda wadaagsan ee shirkadda dhistay dekedda Garacad waqti badan gelisay ka shaqeynaysa muddo waxaan u yeelayaa mudane Warsame Qolofey waxaan jecelahay qof kasta halkan ugu yeero waqti ma haysano 3 daqiiqo inuu hadlo 3 daqiiqo inuu hadlo qof kasta aan halka uga yeero Laftagareen iyo madaxweyne Mustafa Cagjar ayagoo matalahaya dhammaan Soomaaliya madaxda maqan iyo inta joogtada waxaan u leenahay marka hore Ilaahay noo barakeeyo marka xiga waxa weeye hadalkayga waxaan ku soo koobayaa dekedan waxay ku soo bilaabatay 50 sano soo socday waa lagu soo taamayay laakiin hadda riyadan hadda maanta rumowday oo xarigeedii la jaray ilaa iyo 2016 bay soo socotay 7 guuradeedii maantay buugta la idin qaybinayo oo dadka madaxda loo dhiibay waa 7 guuradii ay soo madhay iyo maanta meesha ay joogto ilaahay baan ku mahadinaynaa arinta noocaas ah qodobka koowaad waxay ku bilaabatay dekedaas 25 qof oo min 5 kun isku daray oo 25 kun oo dollar ah bay ka bilaabatay maantana malaayiin dollar boqolaal milyan oo dollar baa galay ishaana macallinaha afka wax laga sheegaa maanta waa dhammaad
hadalkayga waxaan leeyahay laba fariimood fariin madaxda dowladaha Soomaaliya madaxweynaha iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo xildhibaanada iyo dhammaantood wasiirada waxaan leeyahay dadka hala jiheeyo dadku ha u jihaysto haddaan la iska jihayn dadka kursiga madaxdu ku fadhido bay ku mashquulayaan ha loo jiheeyo dadka wax la yiraahdo horumarka dadka shacabkaana waxaan leeyahay oo Soomaaliyeed degmo anigu aan ka soo jeedo wax ku bartay oo cadalo la yiraahdo odayaasheeda baa waxay oran jireen arayninkan ciidda meel ku lahayn cirka meel kuma leh adduunyada haddaan laga samayn dhulka haddaan meel laga samaysan cirka meel kuma lihid waxaan leenahay dadweynaha Soomaaliyeed oo lacagta haysta waa idin sheegnay 25 kun baa dekadaas ku bilaabat maantana muuqaalkaas ay leedahay aynu ku mashquulno kursi siyaasadeed naba qaado kursi madaxweyne naba qaado kursi xildhibaan naba qaado kursi wasiir naba qaado waxaana deeqa dalkeena inaan wax gashanno waxaan dadka Soomaaliyeed ugu baaqaynaa annagoo ah kamad dadkii meeshaas maalka gashaday dhammaantood iyo boorkii halka fadhiyo dadkii inta u soo dhabar adayga ahaa waxaanu maanta ku boorinaynaa ummadda Soomaaliyeed ha loo jeesto ciidda yaan loo jeesan siyaasad ha loo jeesto inaan badeena wax ka qabsano wadooyinkeena wax ka qabsano ayraboorradeena wax ka qabsano magaalooyinkeena wax ka qabsano fariinta kale aan dirayaa waxay tahay waa mahad celin ilaahay baa mahad leh ilaah baa noo kasay aadane looma nisbayn kara waxaan oo kale ilaahay baa noo kasay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo shaqadaani markii dadka ganacsatada ahi bilaabeen waxaa garab istaagay naf iyo maal iyo talo madaxda dowladda Puntland oo u kala dambeysay xukunka labadan jeer oo hadda Siciid Cabdullaahi Dani u dambeeyo naf iyo maalba waxay nagu garab istaageen siday u hirgeli lahayd dekadaas maantana wanaagaas bay leedahay ayagoo nool inay maanta soo gaaraan oo xarig jarkeedii soo gaaraan ilaahay baa iyagana u kasbay waxaan leeyahay oo mahad celinayaa cid kasta wax ka geysatay hadday madax dhaqan tahay hadday madax dawladeed tahay hadday dadkii maal gashaday tahay hadday cidda maanta timido ugu dambayso xarig jarkeeda ka soo qayb gala tahay hadday on si gooniyo u xusahayo xildhibaanadii federaalka oo hiil qaran loo bixiyay oo maalintii xukuumaddii maalintaa jidhay ka baaqsatay kaligood diyaaradda soo qaatay aan ugu dambaysiinahayo waxaan leeyahay jisadina khayr Allah ka dhigo waxaan ku soo aruurinahayaa hal kalmadoo kaftana madaxweyne xasan sheekh kalmadda laga hayo waxay ahayd qabyo ninkeeda dhamaystira madaxweyne maanta halkaan aan soo gaarsiinay haddii rabbigay idmo dekadii qaybna maantaan furaynaa labadeedii beertin oo koowaad qaybna waa dhimantaho waa qabyo inaan dhammaystirna ilaahay waa ka rajaynaynaa annagoo ilaahay garab galayna waxaa qabyo ah waddadii tiriijii koodor loo baxshay oo isku xiraysay Garacad Gaalkacyo iyo Galdogob ayadana maanta waxaan ka codsanaynaa halkaan qabyadaas inay dhammaystirmayso halkaan inaad nooga dhawaaqdid waxaan leeyahay waad nasiib badan tahay madaxdii ka horeysay oo federaalka waa u suurageli weyday inay laba xabad bulkeetiya iyo laba qaada isa saaraan laakiin maanta waxaa nasiib u heelatay ayadoo xarig jarahaya maanta inay xarig jegtid oo markii ganacsiga ugu horeeyay oo 9,000 oo tan sida inuu maanta ku xiran yahana nasiibkaaga ku gaarsiiyay adigana waxaan ku leenahay hambaliga mar labaad waxaan ku soo aruurinahayaa oo dhammaanteen leenahay cabsida rabbi iyo ciideenna inaanu nafacsanno kuna noolaano ayadana nafaqo kala soo baxno ayadan guul ku gaaraynaa aad iyo aad ma hasantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan jeclahay qayb technical ah oo dekadu sida ay tahay iyo dhiibskeeda iyo sharaxaya 5 daqiiqo iyo haray 2 daqiiqo iyo haray maarayaha dekada inuu ka warbixiyo ilaa waxa la rabaa information in la helo intee dekadu dhan tahay muxuu yahay maxaa ku xiran ku soo dhow maarayay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مركورة وحن سلامية مدحوينها جمهورية فدرالكا يا الصومالية دكتور حسن شيخ محمود horta taytalka hala la qabsado Soomaalidu madaxweynuhu PhD buu qaatay hadda kadib madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar iyo wasiirka gaashaandhigga dawladda aan walaalaha nahay ee Kenya aadan barre ducaale abaariyaako anaga kelmadii gudoomiyaha noo yiri arinta waxaan kaliya waraba halkan u soo istaagay inaan maaragtay sharaxaad yarna ka bixiyo dekedan iyo mashruucan iyo fishinkiisa iyo una mahad celiyo madaxda iyo marti sharafta iyo dadweynaha xafladan nagala soo qayb qaatay mudanayaal maanta saa u jeedaan dekada waxaa ku xiran markab 9,000 oo tana waxaa dhammaaday wejigii hore ama phase 1 oo ka kooban laba jambi jambiyada A iyo jambiga B oo hadda uu ku xiran yahay markabku jambiga A waa 160 mitir jambiga B na waxa weeye 120 mitir 280 mitir labada jambi oo noo haray oo C iyo D midna waa 320 mitir midna waa 300 mitir waa labada jambi oo waaweyn dhabtigooduna ilaa iyo -13 buu gaaraya iyadoo aan wax directional lagu sameyn daad macnaheedu waxa weeye maraakiibta ilaa 40,000 oo tan baa ku xiran kara dekedan waxaana ka mid noqonaysaa sidii gudoomiyuhu sheegay deked ku soo biirtay dekadaha Soomaaliya mashruucan deked kaliya ma ahan mudanayaal marweyn waxaan halkaan rabnaa inaan ka hirgelino waa economic corridor ama corridor kale oo Soomaaliya ku soo biira oo ay ka faa'iideystaan guud ahaan dadka dega geeska Afrika gaar ahaan wadamada Soomaaliya iyo Kenya wadamada Soomaaliya iyo Ethiopia mashruucani wuxuu ka kooban yahay in laga dekad casri ah laga hirgeliyo magaalada Garaacad waxa ku jirta wadada isku xirta magaalada Garaacad oo sii maraysa Gaalkacyo ilaa iyo borderka wadanka Soomaaliya uu la leeyahay dalka Ethiopia magaalada Turdibi halkaas oo aan ka rabno inaan ka hirgelino dekad ama dry port dekad qalalan si alaabta dekedan uga soo degta ay uga faa'iideystaan dadka walaalaheena oo dega dalka Ethiopia oo ay ugu horeeyaan dadka Soomaalida ee ku nool dawlad deegaanka Soomaalida marka mashruucani waa mashruuc hadda madaxda halkan fadhida saddex madaxweyne si gooni u qoseeya madaxweynaha dawladda federaalka oo aan ka codsanayno sidii gudoomiyuhu sheegay in koridorkan nala ka taageero madaxweynaha dawladda Puntland iyo madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Aktar maxaa yeelay dadka saddexdaas ama gobolka guud ahaan Soomaaliya ama geeska Afrika ama Puntland ama dawlad deegaanka ku nool si gooniya bay mashruucan u anfacaya marka intaasaan rabaa inaan ku soo gaabiyo aad iyo aad baan u mahadsantihiin intaasaan ku soo gaabinaya assalaamu calaykum aad bay u mahadsan yihiin gudoonka iyo maareeyaha gudoonka wadaagsin haatanna waxaan fursad siinayaa gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliyeed mudane Gabayre oo halkan jooga oo ganacsato badan halkan uu hogaaminayo ay ku yimaadeen kuna hadlaya magaca ganacsatada soo dhawow mudane
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن حسن الشيخ محمود مدحوينها دولة بوتلاند مدن سعيد عبد الله الدني مدحوينها كلك دولة دجان كصومالية مصطفى عجر مدحوينها كفر قلبيد مدن عبد العزيز لفت جرين wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Kenya iyo mas'uuliyiinta tirada badan ee dhammaan ka soo qayb galay ganacsato iyo asxaabta marti sharafka dhammaantiin iyo mas'uuliyiinta wadaagsan waxaan leeyahay dhammaantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan ka bacdi waxaan rabaa marka u horeysa mudan madaxweyne inaan u mahad celiyo walaalaheen saaxiibadeen shirkaddan magaceeda la baxday wadaagsan oo runtii wax la taaban kara qabatay bilow fiican u ah anaga wax badan waa soo qabanay ganacsatada Soomaaliyeed laakiin dhinacaan oo dhinacii ugu cuslaa ah aad ugu mahadsan yihiin shaqada walaalaheen ay qabteen waxaan leeyahay maanta hambalyo shaqada ay qabteenna waa ku mahadsan yihiin waxa si gaar ah aan rabaa walaalaheen oo shaqadan qabtay inaan u sheego kuna niyad dhiso waxaan isla soconay maanta ganacsatada Soomaaliyeed xoogeedii oo dhan waliba qaybaheeda import and export oo isticmaali doonta dekedan oo ay kamid tahay qaybta hadda markabkan shamiitada u horeeya oo keenay ay kamid yihiin waxaa kaloo nala socda 4 shirkadood oo ugu weyneed oo linerska Soomaaliya oo ayaguna bilaabi doona 15 maalmood gudahood markab liners halkan ku soo xiri doona oo container oo ayaguna bilaabi doona insha Allah waxaan kaloo rabaa mudan madaxweyne inaan kuu sheegay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Daniba inaan idiin sheegno makadaani inaan uga faa'iideysan doono dhinaca xoolaha oo waliba dhoofinta baan ku raahdaa maxjar inta meeshaan aan ka sameeyno aan ka dhoofin doono xoolaha Soomaaliya aad meeshaan gobolada dhexe waa meelaha ugu fiican xoolaha Soomaaliya laga dhoofiyo meel kale waa la geeyaa marka waxaan rabaa ma badinayo warkayga waqtiguna waa aad u qaal u yahay waxaan rabaa aadan ugu mahad celinaa walaalaheen shaqadan qabtay waana ugu tashanaysaan Soomaali meel kasta ay joogtana dowladda deegaanka Soomaalidan waxaan rabnaa inaan sabalay gareyno oo aan ku soo xirno dalkeena inay ku xirantay insha Allah Mustafa waxaan rajaynaynaa si badan inaan soo booqan doono ganacsatada halkaas insha Allah waa maasantiin wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh thank you aad buu mahadsan yahay gudoomiyaha rugta ganacsiga mudane Gabeere aad baan uga mahad celinaynaa isaga iyo ganacsatada kala duwan ee Soomaaliyeed iyo kuwa dal iyo dibadba ka yimid halkan maanta nala jooga sharaf weyn iyo maamuus bay noo tahay la joogino waxaa tan ila soo dhaweysaan wasiirka wasaaradda dekedaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdullaahi Axmed Jaamac Ilkajiir بسم الله الرحمن الرحيم وقول ربي زدني علما صدق الله العظيم ما هدنقنا هو دمادي محوها سو دوينتنا way dhamaatay marka waxaan haray inaan madaxweynayaasha ku soo dhaweyno inay way waqti amiin baa la joogaa kuleel baa la joogaa qorrax baa la joogaa waxaan diidaynaa in aan ku daaho waxaan rabaa inaan marka hore ilaahay u mahadnaqno alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahaygi inoo fudeeyay inay hawshan inoo dhamaato waxa laga yaabaa madax badan oo markii hore islahayd ma suuroobayso inay maanta ka daawanayaan shaashadaha inay suurooday oo xasan sheekh maxamuud iyo Saciid Cabdullaahi Dani ay dhagax dhigeen ay ka jareen xadhiga waa ku faraxsanahay inay maqan yihiin raggii ka qayb galay dhagax dhigeeda laakiin iyana way gaari doonaan madaxweyne waxaan kuu sheegayaa in wax weyn ay ka tari doonto muxuu ahaa ganacsiga iyo kordhinta dakhliga dawladdu ay leedahay garaacad waa ku xidhan tahay muxuu ahaa federaalka waana rajaynaa muxuu ahaa inta kale ee Boosaaso iyo Kismaayona inay nagu soo xidhmaan si dhaqso haddii alla yari waa intaan u soconno marka alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaan rabaa inaan idiin xambaliyo qolada wadaagsan waan raado muxuu ahaa khayr baad samayseen Allah idinla garab galo inta hadhayna insha Allah biyo uma kabanayno insha Allah waa fuudeynayna khayr baan idin rajaynayaa madaxweynaha wixii kala hadhow idin kala hadi doono idin ku bishaareyn doono haddii alla yiri
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad ayuu mahadsan yahay sida waqtiga inagu soo koobay wasiirka dekedaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Axmed Jaamac Ciilkajiir waxaa tan ila soo dhaweysaan wasiiru dowlaha gaadiidka ee dowladda federaalka Itoobiya Mr. Boro ila soo dhaweeya soo dhawow Your Excellency, President Hassan Sheikh Mohamud, President of the Federal Republic of Somalia, Your Excellency, President of the Puntland, Syed Abdullah Deni, Your Excellency, President of Somalia Regional State, President Mustafa Mohammed, delegates from Kenya, led by Defense Minister Mohammed Barre Doale, honorable ministers, delegates from Kenya, Ethiopia, Somalia, Puntland, all protocols observers, ladies and gentlemen. The people of Ethiopia and Somalia have long historical and brotherly ties for thousands of years. With today's opening of the new Garad seaport, a significant milestone in the development of Somalia and for the people of the Horn of Africa. We are honored to be invited to join you to celebrate this momentous occasion, and as your large landlocked neighbor, we are greatly looking forward to the contribution of Garad seaport to the transportation infrastructure and logistic facilitation of the region. Under our Excellency Prime Minister Dr. Abiy Ahmed, the homegrown economic development program of Ethiopia greatly focuses on increasing regional trade and developing the infrastructure required to allow us to import and export competitively to the world. With the opening of this new terminal, our region will be able to use the largest ships operating in the world today. Ethiopia, being a country of over 110 million populations and has a landlocked country, is taking a very massive transformation program on transport and logistics sectors, and to that effect, a national logistics strategy with these 98 interventions for which different projects are identified under implementation. Among the 98 interventions, in the national logistics strategy of our country, port and corridor diversification is the prominent one. As Ethiopia grows, there is an urgent need for us to develop additional transport corridors to cope up with the growth. The opening of the Garad seaport is an important addition to the infrastructure available to Ethiopia, but we will still need more such ports developed in the region. Once again, I would like to congratulate the people and government of the Federal Republic of Somalia on this great achievement. Let us not forget that this terminal has been constructed during a global pandemic, and we, the government and the people of Ethiopia, look forward to using Garad seaport. I thank you. Thank you very much. Thank you. aad buu u mahadsan yahay wasiiru dowlaha gaadiidka ee dowladda Itoobiya waxaa haatan ila soo dhaweysaan wasiiru dowlaha wasaaradda warshadaha ee dowladda Itoobiya ee federaalka ah Xasan Maxamed بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية الديمقراطية الصومالية مدن حسن الشيخ محمود مدحوينها دولة بنتلاند مدن سعيد عبد الله الدني مدحوينها دولة ديغانك الصومالية مدن مصطفى محمد عمر مدحوينها دولة قبليتك كونفور قلبيت
mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigaran wasiirka gaashaandhigga ee dowladda kenya iyo waftigu hogaaminayo mudane aadan barre ducaale wasiirada iyo xildhibaanada heer federaal ee etoobiya iyo soomaaliya wasiirada iyo xildhibaanada heer deegaan dowlamaasiyiinta ganacsatada culimadiinka iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan mudanayaal iyo marooyin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aniga oo ku hadlayo magacayga iyo magaca dowladda federaalka etoobiya waxaan marka hore jeclahay inaan u mahadceliyo dowladda puntland ganacsatada sharafta leh iyo guud ahaanba shacabka reer puntland ee nagu marti qaaday inaan ka soo qayb galno xafladdan qiimaha badan ee lagu furayo dekedda cusub ee garaacad oo runtii run ahaantii ka mid ah mashaariicda ugu waaweyn ee laga hirgeliyey gobolka geeska afrika ee aan ku noolahay dekedda garaacad waxay calaamad u tahay isku tashiga maalgelinta deegaanka ah fikir iyo maskax ay la yimaadeen madaxweynaha puntland ganacsatada dadka reer puntland iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaanba taas oo dhiirigelinaysa in dadweynaha geeska afrika ee maalqabeenka ah ku dhiiradaan inay maalgashadaan waddankooda ay isku tashadaan iyaga oo kaashanaya dowladahooda waxaan si gaara ugu mahad celinayaa dowladda iyo shacabka puntland inay hirgeliyaan mashruucan baaxadda weyn u leh deegaanka guud ahaanba soomaaliya oo dhan iyo gobolka inteeda kaleba dekeddani waxay isku xiri doontaa gaar ahaan ganacsiga iyo waxisdhaafsiga maamulka puntland ee soomaaliya iyo dowladda etoobiya gaar ahaan dowlad deegaanka soomaalida oo daris la ah iyo etoobiya inteeda kaleba waxay kor u qaadi doontaa xiriirka labada shacab ee soo jireenka ah waxayna kordhin doontaa dakhliga shaqa abuurka iyo canshuurta labada dhinac waxay sii laba jibaari doontaa wada shaqaynta iyo iskaashiga labada dhinac iyadoo la xoojin doono kor u qaadidda ganacsiga ka hortagga ganacsiga sharci darrada ah ee marmar ka gudba xuduudda mudanayaal iyo marweyn mudane madaxweyne dekedda garaacad waxay tusaale cad u tahay horumarka hirgeliyo aan nahay shucuubta geeska afrika waxayna muujinaysaa inaan leenahay karti aqoonta iyo maaliyadda aan ku fahanno mashruucan baaxadda weyn ee leh aysan jirin magaalada cid dibadda ka timid oo maalgelisay ama waxa loo yaqaano foreign direct investment waxay ku timid iskaashi shacabka puntland dowladda soomaaliya iyo ganacsatada guud ahaanba runtii waxaa sharaf ah noo ah annagoo dowladda etoobiya matalayna inaan maantan mashruucan ballaaran ee qiimaha badan aan xarig jarkiisii ka soo qayb galno dowladda etoobiya waxay diyaar u tahay inay noqoto macaamiil ugu weyn ee wax laga soo la soo degta ama ka dhoofisa dekedda garaacad garaacad islamarkaana ka caawino wixii farsama ama maalgashi ah ee loo baahan yahay dekedda hadda kadib wixii ka bilaabma waxaa kale oo ugu baaqaynaa dhammaan ganacsatada reer etoobiya iyo kuwa dowlad deegaankaba inay dardar geliyaan adeegyada dhoofinta iyo soo dejinta ee dekedda garaacad oo ah mid aad ugu dhow oo u sahli doonta in ay ka faa'iidaystaan shucuubta labada dhinac ugu dambayn waxaan u mahad celinayaa madaxda soomaaliyeed gaar ahaan dowladda puntland iyo shacabkeeda iyo ganacsatada si wanaagsan loogu soo dhaweeyey naguna sharfay inaan goobjoog ka noqonno maalintan taariikhda weyn u leh geeska afrika dekeddani waxaa soomaalida taagaa waxay rag isku raacaan rabbina rumeeyo way rumowdaa maanta dekedda garaacad maamada soomaaliyeed ayay ku qotantaa sidaa darteed waxaan dhammaanteen inoo rajaynayaa guul geeska afrika oo dhan xasilooni horumar barwaaqo ayaa dhammaanteen inoo rajaynayaa maadaama wakhtigu yaryahay aad iyo aad baad mahadsantihiin mudanayaal iyo marweyn mar labaad waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
aad buu mahadsan yahay mudane xasan maxamed wasiiru dowlaha wasaaradda warshadaha ee dowladda federaalka Itoobiya. maalin weyn ayaynu joognaa, maalin qiimo inagu ayaynu joognaa. xarig jarka dekedda Garacad waa masiiri Soomaaliyeed. dadka reer Puntland tusaale ugu noqdeen dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba gobolka in haddii la isku tago oo la tashto oo wax la qabto oo wax la isku daro oo tabar iyo taagba la isu keeno in la dhisi karo xarun noocan oo kale iyo meelo ka weyn. dhalinyaradii xitaa halkan qaybtood joogaan shaqaalaha ah halkaas ayana maaragtay aan ku maamuusaynaa ee dekedan dhisayay wiilal iyo gabdho habeeno iyo maalmo shaqeeyay halkan joogay ku gaajooday halkan oo aan sidan laami u ahayn oo ka qurux badnayn ku noolaa ku sugnaa ateenadoo daciif xilligaas ka ahayd isgaarsiinta waqti dambe helay ku shaqeeyay intaas ku sabrayay aaminsanaa in halkaan ay deked noqonayso. maanta iyana way dhoola cadaynayaan cid kasta oo ka qayb qaadatay oo ka raali ahayd way ku faraxsan tahay. waxa ila soo dhaweysaan wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Kenya mudane Aadan Barre Ducaale. bismillah. The President of the Republic of Somalia, His Excellency Hassan Sheikh Mahmoud, the President of Puntland Region, President Deni, the President of Southwest Somalia, my brother Abdulaziz, the President of Somali Region of the Federal Republic of Ethiopia, Brother Mustafa Omar, cabinet ministers present from neighboring countries, President Hassan, I am here on behalf of the Kenya government. You are aware under your invitation and the invitation of President Deni, which was passed through President William Ruto, and I have come here with a delegation from Parliament, the private sector, and the community. And we have come here to witness the success story of the private sector. What the private sector can do in port construction, in road construction, in making sure that the economy of our region gets better. I want to assure you, President Hassan, that we have better experience in Kenya in the management of ports. And I want to ask President Hassan and President Deni that we are ready to support in training men and women who will run this port and other ports by sending them to our maritime college in Mombasa. I am happy the port manager is a student of one of the universities in Kenya, but there's a very big college that East African students use who run port, and it's based in Mombasa. We wanted to send those young men and women to that college. We want you to send those young men and women who will run this port and other ports in Somalia to our Kenya Revenue Authority Institute, because we must get people who will run the port in offloading cargo, and we must get men and women who collect revenue, who work as customs officers, who work as immigration officers, and we are ready as Kenya under the leadership of President William Ruto to support your government. We are ready for that. Of Somalia waan iska ilaalina markaan Soomaaliya imaado marmar kaftan aan ku hadla markaa kaftankii waa dhibaatooyin badan ii keenay. Marka maanta waxaan dhahay af Soomaaliya bal iska ilaali, laakiin waxaan rabaa inaan xuso madaxweyne Xasan iyo
madaxweyne Deni iyo madaxweyne Cabdicasiis iyo Mustaf iyo wasiirada meesha joogaan inaan ku faraxsanahay inay ganacsatada ama private sector-ga ay isku imaan karaan oo dekad noocan dhisi karaan hadda wali laguma arkin East and the Horn of Africa marka waxay noqonaysaa case study waxaan rabaa ragga iyo haweenka dekedan dhiseen in loo duceeyo la garab istaago dowladda Puntland iyo dowladda sare ee Soomaaliya ay garab u noqoto oo Soomaalidana dhaqaalaheeda kor u qaadaan waqti badan waxaan ku bixinaa siyaasiga waqti badan waxaan ku bixinaa meelaha fadha ku dirirka waqti badan waxaan ku bixinaa social media walakiin waa iska fiican yahay xalay inuu noqdo positive criticism waqti badan waxaan ku bixinaa arrimaha qabiilada iyo insecurity-ga waxaan rabaa inaan waqti badan ku bixino sidii dhaqaalaha ummadda Soomaalida meelay joogaanbo kor loogu soo qaadi lahaa ama Ethiopia ha joogaan ama Kenya ha joogaan ama ha joogaan Soomaaliya ama Djibouti ha joogaan ama ha joogaan qurbaha waxaa la rabaa in la iskaashado oo dhaqaalaha ummadda kor loo soo qaado dhaqaalaha ayaa lama huraan waxa kale waxa dad waxba matalayo dhaqaalaha markii la dhiso zakada badanaysa masaakiinta ayaa la qoodinaya masjidka iyo madaaris iyo diinta ayaa dhaqaalaha lagu dhisay la helaya marka waa in gacmaha la isqabsado dowladaha lala shaqeeyo waliba dadka hadda maqlay waxaan dhihi lahaa madaxweyne xasan in garab loo noqdo lala shaqeeyo madaxweyne Deni garab loo noqdo madaxweyne Cabdicasiis dowladda madaxweyne Mustaf hadda أنا ولي متجين ريجن كصومالي لكن مدحونا مصطف أنتو قبتي صومالي واحد هذا قرح صوب بعد الصعب لو بقري كرو قف تجو ريجن كصومالي ده big development أنا كسوري والله صعب success stories مركا دولة عدينا لا شقية أما دولة جوالات كأما دولة السراء فائدة واللي هي أنا كنا وحنكفرنا دانا الصومالية iyo wadanka Kenya markay regionka ay nabadgelyada sugnaato oo peace and stability la helo ada Soomaaliya waxaan rabnaa inay qayb ka noqoto suuqa weyn East Africa Community waa one step oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka shaqeeyay badeecada East Africa Community markay isku marayso anshuur lama qaado faa'iido badan leedahay marka hada waa big development inay Soomaaliya qayb ka noqoto the integration of East Africa Community as an economic bloc marka waad baadsantiin wada soo dhaweyseen madaxweyne Deni maanta markaan soo bixinay waxaan soo qaadanay Sheekh Maxamed Cusmaan مرة إنه فدي بوجيه شيء محمد سواقع شو سبحان حنا أنا لوك جرانه بنتنا أنا نقطع عناه ما تعرفين هرمر كابتن كذا نضمون إن شاء الله مركا أولي أصلا وادي ومفتي أنا ودنك كينيا دعوة ينوضا وأنا أولي عانه وحنا رصعدا كابتن محمد و سكاي وادز مانجينج دايركتور تشيرمان iyo waxaan la socdaan saddex xildhibaan oo waliba guddiga baarlamaanka oo u xil saaran arrimaha defense-ka iyo national security mheshimiwa Raso wuxuu ka yimaaday Moyale mheshimiwa Nelson waa chairmanka defense and foreign relations iyo Major Bashir asagana defense and relation committee marka guddi fiican madaxweyne waan we are happy and we are ready to work with your government and the regional government marka inshallah soo dhawaada la tawfiiq aad buu maasan yahay wasiirka gaashaandhigga dawladda Kenya aadan Barre Ducaale waxa haatan ay la soo dhaweysaan madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar
soo dhawow madaxweyne ku soo dhawow Puntland ku soo dhawow Garacad. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينه حسن شيخ محمود مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدحوينه سعيد عبد الله الدني مدحوينها دولة بنتلان جمهورية الصومالية مدحوينه عبد العزيز حسن محمد مدحوينها دولة قبليتك كونفور قلبيت الصومالية مدن آدم برهد دعالي وزيرك قاشانديقة جمهورية كينيا مسؤولين تكله كصعد الدلكا إثيوبيا كصعد جارهان فدرالكا مسؤولين تا كصعد الدلكا هالك ما تكون عسومن جيسكا وضياشة مدحض قامتكا iyo madaxda kale halkan isugu timid shacabweynaha la casuumay ganacsatada dhamaantiin waan salaamaya waan idinka mahadnaqayaa ka soo qaybgalka munaasabadan taariikhiga ah quruxda badan ee dhamaanteen aan qaybta ka nahay fariinta ugu muhiimsan ee dawladda Itoobiya waxa soo jeediyay wasiirka dawladashii labada ah iga horeeyay oo tilmaamay diyaarka sida ay diyaar ugu tahay dawladda Itoobiya inay ka faa'iideysato dekedan cusub ee ku soo korodhay mandaqadan taaman si adkeynaya anigu deegaanka Soomaalidu maadaama uu dalka Itoobiya cidda ugu badan ee ka faa'iido doonta uu noqonayo geography ahaan sida uu yaalo iyo shacab ahaanba inaan diyaar u nahay in kaalintanada ka ciyaarno dhabahaana shaqooyin qabsoomay haddaba ay jiraan waxaa ka mid ah in wada laamiya oo isku xidha magaalada Qabri Dahar iyo Wardheer ay hadda dhammaan tahay oo ay dhamaanayso taasoo jirta inay jirto wada kale oo la qorsheeyay oo ka soo bixi doonta Dhagaxbuur Awaare Danood ilaa iyo galaadi imanaysa oo iyaduna ku jirta qorshaha in la sameeyo waxa loo baahnaan doonaa in la soo gaarsiiyo ilaa Tuurdibi laakiin shaqadaas marka ay dhamaato waxay xoojin doontaa ka shaqaysiinta dekedan hadii la yiraahdo sida la socotaan dalka Itoobiya waa dal shacab fara badan leh ganacsi badan ka socdo dhaqaaluhu korayo waxa sii kordhin doonta baahida loo qabo in la isticmaalo dekada fara badan sida daraadeed dekedan si gaara waxaan u naalaa sida dalka Itoobiya waxaan ku teedsanahay dalka Soomaaliya oo dhan iyo geeskaba ilaa Kenya ilaa Djibouti ilaa wadana fara badan marka laakiin gobollo si khaas ah ay dekadu uga fog yihiin baa jira waxa kamid ah gobollada hadda aan Arab ku dhuftay anaga deegaan ahaan ma oo kaliya goboladan dhexe ee deegaankanaga sida Wardheer Qabri Dahar inahaas halka maraya ilaa iyo nogob dhulka la yiraahdo laakiin dhulka Oromiya badankiisu shacabka ugu badan ku nool yahay qaybo badan oo harar kamida qaybo badan oo Arsi iyo Baale ka tirsan waxay si toos ah ugu dhawaan doontaa dekedan marka dekedan xisaabtankeedu waa inuu noqdaa mid dhaafsiisan deegaanka Soomaalida mudanayaal intii isbedel ka dhacay dalka Itoobiya ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed uu qabtay xilka isbedel balaaran oo dhanka isdhexgalka iyo wada shaqaynta amniga ayaa ka jira yaan oran karnaa geeskan waxa markhaati ka ah Puntland diyaaradaha hadda yimaada Garow iyo Boosaaso waxay bilowdeen 2 sano 3 sano u dambeysay taasoo si weyn wax uga bedeshay dhaqaalaha labada dhinacba waxaan xog ku hayaa in 45% kor uu kacay ganacsiga Boosaaso dekeda Boosaaso oo kale intii isbedelkaasi dhacay waxaana badankeedu uu ka yimid isticmaalka ganacsatada Itoobiyaanka ay isticmaalayaan dekedaas waan sii xoojin doonaa arrimaha noocaasa waana ku faraxsanahay dekedan cusub ee soo korodhay in aad u fara badan mandaqadan waxa ka jiray dagaallo fara badan oo runtii dadka deegaanka la haray marka deegaanka Soomaaliya anagu waxaanu isu diyaarinaynaa inaan noqono centerka Horn of Africa Regional Integration Initiative ka la wado in aad u fara badan deegaanka anagu meesha uu ku yaalo wuxuu ahaa meel ka soo fog centerka dalka aan ka tirsanahay Itoobiya marka periphery baan ka ahayn Itoobiya sidoo kale dadka ugu badan dhaqan iyo dhiig iyo ganacsi la leenahay Soomaalidana dad ka fog periphery baan ahayn marka waxaan isu position garaynaynaa inaan noqono the new center of the Horn of Africa inaan periphery ahayn ee aan gunti laga duulay noqono ayaan soo diyaarinaynaa
qayb ka mida qorshahaasina waa inaan ka qayb qaadanno ganacsiga maanta halkan ka bilaabmi doona waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad ayuu mahadsan yahay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar aad baan uga mahad celinaynaa munaasabadu inoo sii soconaysaa goordhow madaxda ayaa inoo soo gabagabeynaysaa marka munaasabadu haday soo xiratana waxa la rabaa dadka reer Puntland halkan jooga qaybahooda kala duwan dawlad iyo shacabba intooda badan halkan ay ku hakanayaan madaxda ayaa dabcan bixi doonta goordhow habka habraaca aynu u baxayna idinla wadaagi doonta gudidu aad baan idinku mahad celinaynaa waxaan sidoo kale xusid mudan in xubno ka tirsan golayaasha dawladda federaalka Soomaaliya xildhibaano iyo wasiiro ay joogaan iyana ay sidoo kale joogaan xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dawladda Puntland waxa sidoo kale inala jooga wafti ka socda dawladda Imaaraadka iyo mas'uuliyiin kale munaasabadu way inoo sii soconaysaa waxa ila soo dhaweysaan madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed madaxweyne hadhawow hadhawow aad baa u mahadsantahay hadhawaadi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدحوينها دولة فدرال الصومالية مدن حسن الشيخ محمود مدحوينها دولة بونتلاند سعيد عبد الله الدني مدحوينها دولة ديغانكا صوماليا إثيوبيا مصطفى عمر وزيركا قاشان دقا دولة كينيا يوفد قيسة وزير دولة إثيوبيا فدرالكا وزير دولة صوماليا وزير دولة حبنها كاه joogo saan u malaynayo waa Puntland iyo Koonfur Galbeed xildhibaanada labada dhinac marti sharafta dadka reer Puntland munaasabadan inta ka soo qayb gashay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam runtii waa maalin farxad leh annagana sharaf weyn noo ah inaan ka soo qayb galno munaasabadan quruxda badan oo maanta dad Soomaaliyeed oo walaalaha naga ah ay sameeyeen wax lagu faanana ah waxyaalihii dadkii Soomaaliyeed iyo ganacsatadii 200 sano soo jirtay ay ka fikiraysay waxaanan ahayn rumeeyay sharaf iyo farxad ay noo tahay ka qaybgalkeeda waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan u hambaliyeeyo ganacsatadii bilowday dhistay ku dhiiratay abaabushay iyo dawladda Puntlandbo inay dhisaan dekad ayaga ay leeyihiin oo ay isku tashteen oo aanan meel kalena ka imaanin kaalmo caalamina la sugin dawladana la sugin ayaga ay bilaabeen ayna dhameeyeen maantana aan u joogno dhamaystirkeedii dekadii furitaankeedii dadka Soomaalida sida aan baranay waa wax ugub ah oo cusub ganacsato Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed oo isku tashtay inay dekad ay leeyihiin ay dhisaan saa la socotaan dekadaha maanta Soomaaliya ka jiray dawlado iyo waxa dhisay iyo kaalmo caalami ah kuwa hadda aan sugaynayna waxaan u fadhinoo sugaynay in loo dhiso waxaan lahayn meel hebel dekad baa ku taalo yaa noo dhisi doono meel kastoon tagnaan weydiin jirnay dawladda hebel u tag dekadii hana loo dhiso dawlad hebel u tag dekadii hana loo dhiso meeshaba nagama jirtee dhismaha dekadda annagay gacantaanada ku jirtaay waa arki weyn marka waxay tan tahay taariikh fiican oo nala tusay oo u baahan inaan ka faa'iideysano marka mar koobaad iyo mar labaadba
waa u mahadcelinayaa ganacsatadii arrintan ka shaqaysay waxaan kaloo rabnaa oo bogaadinaynaa in wax ku dayasho mudan baa la suubiyey ganacsatada kaloo Soomaaliyeedna ay ku tarjadaan gaar ahaan waa joogan ganacsatadii reer Koonfur Galbeed waa arkaysay markii siday ku bilaabatay dekedan inaad maanta fariintan inta kala tagtaan oo aad ku noqotaan deegaankeeni oo aad dhistaan dekadaha Marko iyo Baraawaba aad dekada ka samaysaan sida ay dekada Garacad loo dhisay jidkii loo maray u martaan dadkii waa jooga dhaqaalihii waa jiraan ganacsatadii waa jirta dad kale Soomaaliyeed baa hata la heli karaa Soomaali waxay leedahay noqonaysaa marka tanna waa fariin waa fadhiyaan ganacsatadii chamberkii oo Koonfur Galbeed gudoomiyaheedii baa joogo ku-xigeenkii baa joogo oo ka soo qayb galay maanta message-kan inta kala taga ganacsatadii Soomaaliyeed oo aragteen oo waxaan dhisayna la wareystay qaabka ay ku dhiseen naqshada adinkoo wadataan deegaanka ku noqdo hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa inaan dekad annagana aan dhagax dhigno dawladda Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka iyo shacabka reer Koonfur Galbeedna gacan bay ku siin doonaan insha Allah mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u hambaleynayaa ganacsatadii iyo dawladda Puntland sharafayna ii tahay aad iyo aad u mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen aad baan ugu mahadcelinaynaa khudbadiisa qiimaha leh iyo dabcan sida uu tusaaleeyay dadka Soomaaliyeed inay isku daydaan oo dekada kuwan oo kala isku tag ku dhistaan aad baan uga mahadcelinaynaa munaasabadan ballaaran way inoo gabagabo waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo halkan shaqada qayb ka qaadatay hore waxaan u xusnay dhalinyaradii habeen iyo maalinba dhisayay dekedan waxaan u mahadcelinaynaa shirkadda wadaagsin dhismaha garoonka waqtiga iyo nafhurnimada gelisay oo qaybaheeda kala duwan ee farsamo oo xitaa warbaahinteeda wadatay sida u shaqeynayeen waxaan u mahadcelinaynaa warbaahinta Puntland kala duwan iyo kuwa ka yimi gobolada kala duwan ee Soomaaliya iyo kuwa inagala jooga TV-yada iyo jaraa'idada caalamiga sida Al Jazeera iyo Al Arabiya iyo dhammaan inta halkan joogta aad baan iyagana ugu mahadcelinaynaa telefishinka dawladda Puntland TV oo isna qaybinaya muuqaalka tooska maanta loo daawanayo oo warbaahintooda si furan u qaadanayaan aad baan uga mahadcelinaynaa waxaan u mahadcelinaynaa ciidamada amniga sida wanaagsan ee amniga u sugayaan habeen iyo maalin iyo dhammaan cid kasta oo halkan ka shaqaysay iyo shirkadda maamushay meeshan quruxda badan ee qaabkaas quruxda badan u dhacday qaybta dooq bares oo xitaa ilaa kaararka ilaa waraaqaha wax walba inoo samaysay aad baan iyadan ugu mahadcelinaynaa waa ku mahadsantihiin dawladda Puntland ee Soomaaliyeed ee hogaamiyo madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani 4 ilaa 5 qodob oo waaweyn baa waxay u ahaayeen buddig qodobka dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha wuxuu ahaa qodob weyn oo xitaa xilligii ololaha 2018 oo madaxweynuhu kulankiisii ugu dambeeyay ee uu ordayay madaxtinimada uu ka sheegay waxyaalihii uu xusay waxa kamid ahaa Garacad oo uu ballan qaaday haddii la doorto in Garacad uu ka dhabaynayo oo uu dhisayo waana uga mahadcelinaynaa qaybaha kalena waa ciidamada iyo maaliyadda iyo dadka inay codeeyaan oo mas'uuliyiintooda ay doortaan aad baan u mahadcelinaynaa waxaan u mahadcelinaynaa madaxda kale ee reer Puntland ee halkan jooga dabcan dhammaan madaxweynaha ayaa inoo hadlaya gudoomiyaha baarlamaanka u mahadcelinaynaa mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl iyo wasiirada iyo mas'uuliyiintii iyo gudidii heer wasiir ee halkan joogtay iyana shaqada qaybta weyn ka ahaa ee la shaqeeyay qabanqaabadan iyo hawsha inoo diyaariyay waxaad ila soo dhaweysaan madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Dani waa madaxweynaha inoo dhagax dhigay dekada inoo kormeeray inoo fududeeyay adeegyada iyo qalabka iyo wax kasta iyo cashuur dhaaf loo sameeyo lala shaqeeyo amniga cid kasta madaxweyne soo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa wasiirka gaashaandhigga iyo wafdiga uu hogaaminayo
ee dalka Kenya wasiirada heer federaal ee Ethiopia gudoomiyaha baarlamaanka Puntland wasiirada iyo xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya wasiirada iyo xildhibaanada Puntland wasiirada iyo xildhibaanada koonfur galbeed ganacsatada marti sharafta kale cid kasta oo halka fadhida oo aan xusin oon ilaaway dhammaan ka soo qaybgalayaasha ee ugu horeeyaan isimada culummada iyo cid walba maanta halka joogta dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta hadal badan halka igama furna waxaa ii furan oo keliya inaan u mahadceliyo dhammaan inta ka soo qayb gashay xafladdan lagu furayey wejigii koowaad ee dekedda Garacad waxaan kaloo rabaa halka inaan uga mahadceliyo cid kasta oo gacan ka geysatay af iyo adinba oo ugu horeeyo madaxweynihii iga horeeyay Cabdiweli Cali Gaas ganacsatadii isimadii wasiiradii fikirkaas saldhigga u ahaa runtii waxay u tahay Puntland sharaf isku day weyn bay ahayd waxaa saldhig u ahaa inay dekeddan maanta hirgasho go'aankii dawladda Puntland ay qaadatay iyo hantidii ugu horeysay oo dawladda Puntland ay gelisay in lagu bilaabo ganacsatadii ku dhiiratay iyo guddigii hawshaas fikraddeeda riixayay oo runtii maanta sharafta u weyn ee iyagu leeyihiin ee wadaagsin dekeddan iyo ahmiyaddeeda intii igu horreysaa sheegtay waxaan rajaynayaa hadafka laga lahaa oo ugu muhiimsan oo ah inay ka qayb qaadato deganaanshaha iyo amniga geeska mashaakilka u weyn ee dadkeenna haysta oo laga soo galo waa dhaqaale xumida iyo saboolnimada dekeddan waxay abuuri doontaa kobcin doontaa dhaqaalaha waxay kor u qaadi doontaa isdhexgalka iyo xiriirka ganacsiga waxay abuuri doontaa in dadka wax la isugu daro oo ay wada wadaagaan si ay u noolaadaan waxaan uga mahadcelinayaa madaxda geeska Afrika ee ka soo qayb galay oo runtii waqtigooda soo bixiyay waxay noo muujiyeen inay diyaar u yihiin inay Soomaaliya wax la qabsadaan oo wax la qabtaan sharaf weyn bay noo tahay haddaan nahay Soomaali inaan dalkan u jihayno inuu noqdo dal xasiloon oo ka qayb qaata deganaanshaha iyo horumarka geeska Afrika iyo isdhexgalkiisa waxaan u nahay ubuuc waxaan rabaa inaan si gaar ah uga mahadceliyo madaxda dawladda federaalka ee Ethiopia iyo madaxda dawlad deegaanka Soomaaliya ee Ethiopia oo runtii muddadii ay socotay iyo ka horba xiriir iyo ganacsi hore aan lahayn ka sokow naga ogolaaday inay dekeddan ay noqoto meel ama corridor kaleeto cusub oo ku soo biiraya Ethiopia waxaa dhammaaday Turdibi kastamkeeda oo labada u dhaxayn doona insha Allah dal waxaan rajaynaynaa inuu ganacsiga iyo horumarka uu qayb ka qaato hadal badan maanta halka igama furna waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo oo hadalka xoogiisa leh madaxweynaha federaalka Soomaaliya oo aan si gaar uga mahadcelinayo inuu maanta kulankan ka soo qayb galay kelmadaha ku aadan Soomaaliya iyo wixii laga yeelay isagaan u deynayaa madaxweyne soo dhawow waa mahadsantahay Kulamaa calankii
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدا أخيارتي إيقوه الرئيسي مسؤولينتي إيقوه الرئيسي ومدحوينها بونتلان مدن سعيد ودبيي أي شاقين با نسمها الدكداني مركا كوباد وتاريخي هورتا أو داد صوماليات أو إسو تغي أو حوق قودي يعقل قودي يحوله دي إسو جي waxa ay qaban karaan ayay horta waxay u tahay daliil iyo tusaale masaalixda dekad iyo dekadnimo ee laga helaya waxa ka dheer casharka dadka Soomaalida ah la tusay in ay sidan suurtagal tahay suurtagalna ka tahay 3,000 kiiloomitir ee xeebta aan leenahay inay ka wada dhismaan dekada noocaana meel kastaba dalka Soomaaliya ilaahay idankiis meelii uu ku jiri jiray waa ka soo baxay uu socdaa waana sii socon doonaa calaamooyinka ama tilmaamooyinka tilmaamayana tan ayaa ka mid ah in dekedan la dhiso oo lagu dhiso waliba xoog iyo xoolo iyo caqli dad private ay leeyihiin oo dawladda Puntland maada ka gaartay inta muxuu ayadu door ka qaadan karta ka qaadatay aad iyo aad ayay runtii waxay u tahay wax dhiirigelin la dawladaha kale ee xubnaha ka ah dawladda federaalkaana tusaale u tahay in dadka markii la abaabulo in ay wax qaban karaan waxna qabsan karaan shanta dawlad goboleed ee maanta Soomaaliya ka shaqeysay joogtahay mid walba baday ku xiran tahay xeebay leedahay dhulbadeeday leedahay mid oo badda ka go'an ma jirto marka mid walba in ay sidaan oo kale meelaha ay badda uga agadantahay meeshii ku habboon ee strategic ah inay dekad ka samayso intay doonto hal ekaatee waa dhab waxa kale oo aad halkan looga dhawaajiyay Soomaaliya in ay rabto in ay ku biirto suuqa bariga Afrika waa run Soomaaliya suuqa bariga Afrikana waa ka mid Horn integration kana waa ka mid wixii kale ama badda cas ama meel kale ka yimaado economic muxuu ahay forum ana waa ka mid insha Allah ilaahay idinkiis dadka reer Puntland geography ahaan Soomaaliya meesha uga yaalaan mararka qaarkood waxa laga yaabaa inaanay ugu sahlanayn sida qaybo kale oo Soomaaliya ugu sahlan tahay suuqa oo East Africa inay degdeg ama si sahlan uga faa'iidaan laakiin ayagana waxa u furan dabcan meel aan suuq aan ka yareen oo balaaran oo dawladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqeyn doonto wax kasto oo fududeynayo in cilaaqaadkaas dhaqaalaha iyo ganacsiga ay oo horumaro oo uu shaqeeyo oo isku xirmaan hadii aan la yiraahdo ummadaha iyo ganacsiga dhaqaalaha geeska Afrika oo dhan hadii aan la yiraahdo iyo Horn of Africa oo dhan marka arinta infrastructure-ka dhaqaalaha waa wax aad iyo aad muhiim u ah waana waxa keeni kara deganaanshaha muddada fog ah sanadkii hore 2016 doorashooyinkii federaalka dhacayay halaysan lahay oo kamid ahay qabyaninkeeda dhameystiro qaybihii ugu horeeyay qabyada ka dhameystirmay kamid tahay dekada Garacad laana fikirkeeda iyo taladeeda iyo waxeeda waa jireen si kasta ha u ahaadaan bilow laakiin maalintaas waa jireen waa taagneeday in meeshan maxaan ku raadayay dekad ay noqoto dadkii ugu horeeyay way u istaageen maalintaasba odayaasha hadda halkan ka hadlay kuwa kale oo badanba maalintaasba way u taagnaayeen inay Garacad dekad noqoto marka 7 sano 8 sano ka bacdi alxamdulillah maanta waatana waxaan u taaganahay waa xaqiiqadeedii hambalyaan leeyahay guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Puntland hawshan dhaqan geliya waa hambalyeynaya madaxweyne Saciid ayaan si gooni ah isagana u hambalyeynaya oo fududeeyay inay soo degdegto hawshan oo ay qabsoonto oo hadda waxyaabihii la sheegayay maxaan ku raaa kaalmada u ahaa qabso dhismaha dekedan oo dhan qabtay waa ku mahadsanyahay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada kalena aan rajaynayaa inay u tahay tusaale fiican oo lagu daysado oo maxaan ku raaa la daba galo aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ahaan jamhuuriyadda Soomaaliya meel kasto ku taala tuulo kamida horumarka ay gaarto horumar aan ku faraxsanahay oo ku qanacsanahay oo aad iyo aad ugu qanacsanahay anaan jecelahay waay marka horumarka ka socdaay dekedan iyo deegaankan waa horumar Soomaaliyeed waana wax runtii aad iyo aad loogu farxo laguna faano
waxaan rabaa inaan halkan aan ka sheego walaalkay madaxweyne Mustafa dadaalka xaggaas Ethiopia walaaleen ka soo socda maxaan ku raadaa xuduudda infrastructure-ka xuduudda Soomaaliya iyo Ethiopia in isku xirmaan oo ay sahlanaato in labada dhinac la isaga socdo ka hadlay waxaan rabaa dekedan wadada ku xiraysa Ethiopia dhaqaalihii ugu horeeyay in hadda maanta saacadan aan inta joognay in la soo ogolaaday oo meel la soo saaray ilaahay idankiis wadadaasi si xowli ah oo dheeri ah oo muddadii maxaan ku yiraahdaa la qiyaasay inay ku qabsoomi doonto si ka gaaban inay ku qabsoonto ah ayay u dhici doontaa waana u taagnaanaynaa har iyo habeen in ay dhaqan gasho oo wada fiican oo maxaan ku yiraahdaa miisaanka iyo muhiimadda dekedan leedahay qaadi karta inay noqoto haddii aan la yiraahdo sidaas ayaan muxuu ahaayay jamhuuriyadda Soomaaliya dhinacyadeeda dhan oo maxaan ku yiraahdaa yaa infrastructure-ka nagu xiri lahaa Ethiopia hadday tahay wadooyin iyo hadday tahay energy-ga muxuu ahaay xaggaas haddii annaga dekedaheena ay xaggan wax uga tagayaan xaggaasna wax badanaa muxuu ahaay mustaqbalka nooga imaan doono oo ay ka mid tahay energy-ga oo ka mid yahay oo Ethiopia hadda ay meelo fiican ka sii marayso aan rajaynayno mustaqbalkana meelo kale inay ka sii gaarto dadka labada dhinac degan in ay nolol fiican helaan hadafkeena ugu horeeya waay waa Ethiopian waa run laakiin waa Soomaali at the end of ugu dambeynta waa dad Soomaaliyeed xuduudda dheer ee Ethiopia aan la leenahay waxaan ugu malaynayaa dalka Ethiopia dalka ugu xuduud dheer oo xuduudda la leh inaan nahay 1700 kilomitir qiyaastii inta xuduuddaas aan kala leenahay dhul Soomaaliyeed dhul dad Soomaaliya ay ku nool yihiin waay labada dhinacba ee muxuu ahay xuduudda sidoo kale Kenya xuduudda aan la leenahay ayadana ku dhawaad 1000 kilomitir 800 kilomitir gaaraysaa labada dhinac waxa ku nool dad Soomaaliyeed waa hadda adigu sidee u dhihi kartaa wiilkan Soomaaliga aan inuu horu maraan rabaa kan ilma abtiga ama ilma eedada ay yihiin oo dhinac kala degan inuu horu mar rabo mantiq yani hadal macquula ma Soomaalida xuduudda labadeeda dhinac degan maamul kasta ha ka tirsanaadaan siyaasadda waa halkeeda laakiin inay horu maraan oo noloshoodu ay qorxoonaato oo ay macno yeeshaan ayaan rabnaa wax kasta oo fududeynayana dawladaha deriska waa kala shaqaynaynaa annaguna waa ka shaqaynaynaa ka dawladda federaalka ahaan haddii aan la yiraahdo intaas kadib intii meeshaan ka soo qayb gashay farxadda nala wadaagtay walaalaheen muxuu ahay Kenya dalka Kenya iyo dalka Ethiopia nooga yimiday farxadda nala wadaagay aad iyo aad ayaan muxuu ahay ugu mahad celinayaa una bogaadinayaa mashmuuc aadan waxaan leeyahay mahmaadii unsiga maanta waa ka fakatay oo muxuu ahay kismaayo marka soo dhawaada aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin Soomaaliya dalkiini waa at the end of the day ugu dambeynta qof kastoo Soomaaliya caalamka waxa la yiri shimbarka hadduu duulo irsaqiis waa dhulka la yiri si kastoo u duulo markuu wax inuu cuno rabo waa inuu dhulka soo degaan Soomaa qofka Soomaaliga meel kasta ha jooga ee Soomaaliya is a home Soomaaliya waa hoyga guriga muxuu ahay dadka Soomaalida oo dhan ay muxuu ahay ku faani karaan anay wada leeyihiin annaguna sidaas ayaan tixgelinta u soo mar kale dadka reer Puntland hambalyo shirkadda wadaagsan ee muxuu ahay ka shaqeysay mashruucaana si gaar ah hambalyo shirkado badan oo Soomaaliyeedna waa muxuu ahay sameyn doonaan waxaan leeyahay investmentiga shareska dekada feeska koowaad fees labaad iyo fees saddexaad iyo fees afraad u sii dhiman iyo ka badan investmentigana hal furo Soomaalida oo dhan iyo dibadda dalka degan oo dhan ha ka wada qayb galaan ownershipka dekada hal wada lahaado hadii aan la yiraahdo insha Allah aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh